shidaqameedkii beelaha daahir alamagan iyo xuseen cabdulle ee loogu magac daray guuliye gobonimo ee uga socday deegaanka beer ee ka tirsan degmada Burco kana soo qayb galeen madaxda saddex xisbi qaran wasiiro madax dhaqameed qurba joog iyo marsharaf badan socdayna muddo 10 cisho ayaa maanta la soo gabagabeeyay isla markaana laga soo saaray go'aamo maayirka degmada Burco barasaxuunka gobolka Togdheer wasiiro ka tirsan xukuumadda madax dhaqameed culumaa u diin salaadiin iyo garaad halkaasi ka hadlay ayaa dhamaantood soo dhaweeyay go'aamada shirka isla markaana u hambalyeeyay beesha shirka u dhamaaday عبد الله وهاشر قدون كشركة قولي قوانيمو أيها الكاسي كتشيدي هذا الله كوبان كدمنا دكتور عبد ياسين أيها قوامد كسوب بحي شركة هالكاسي كآخريي waxaa lagaga wada hadlayay shirkan danaha iyo arrimaha reerka u gaarka ah shirka ugu dambeyn waxa lagu doortay guddi hagta talada reerka oo ka kooban 22 xubnood oo qodobka koowaad inay go'aan ku gaadhay ku dhaqanka shariicada islaamka waxaana ku boorinaysaa bulshada kale ee Soomaaliland inay shariicada ku dhaqmaan qodobka labaad waa taageerada jiritaanka iyo qaranimada Soomaaliland qodobka saddexaad waa sidii la sheegay waxa la doortay 22 xubnood oo danaha beesha wadi doona ama hagi doona qodobka afraad waxay beeshu go'aansatay inay si buuxda uga qayb qaadato doorashooyinka soo socda ee golaha wakiilada iyo madaxtooyada waxaana u diyaarisay inay kaga qayb gasho 3 xubnood oo labana laga sharixi doono gobolka Togdheer halka midka kale laga sharixi doono gobolka Saaxil qodobka shanaad waxa weeye waxay beeshu go'aan ku gaadhay inay si buuxda uga shaqeyso ama ay isaga xil saarto inay ka shaqeyso adeegyada aasaasiga ah ee bulshada iyo kuwa horumarneed ee deegaamada ay degan tahay oo dhan qodobka lixaad beeshu waxay xukuumadda ka raadsanaysaa wixii ay ka tabanayso xuquuqa waxaanay si mudan xukuumadda uga codsanaysaa inay ka qayb qaadato adeegyada bulshada ee degmooyinka ay degan tahay qodobka toddobaad beeshu waxay go'aansatay inay ka shaqeyso midnimada guud ee beelweynta habar jeclo hormoodna ka noqoto wax kasta oo la xiriira danta guud ee beelweynta habar jeclo qodobka sideedaad beeshu waxay si buuxda xukuumadda ugu taageeraysaa mashaariicda horumarineed ee ka socota guud ahaan dalka gaar ahaan gobolka Saaxil ee ay ugu horeyso mashruuca weyn ee dekada berbera lagu maalgelinayo oo ay u aragto inuu yahay mashruuc aad u yaad dalka ugu muhiim ah qodobka sagaalaad wuxuu ku saabsan yahay deegaanka kilinka shanaad oo ay beeshu deegaan ballaaran ku leedahay waxa ay go'aansatay inay ilaaliso oo ay si buuxda u hirgeliso qawaaniinta iyo shuruucda dawlad deegaanka Soomaaliyeed ee kilinka shanaad iyo qawaaniinta guud ee dawladda federaalka Itoobiya isla markaana waxay si buuxda u ilaaliso nabadgelyada deegaanada ay ka degan tahay kilinka shanaad qodobka ugu dambeeya qodobadu waxa weeye beeshu waxay taageero mugle u haysaa xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo waxay kaloo taageero mugle u haysaa xisbi xaakimka kulmiye ee talada haya marka beeshu waxay soo dhaweynaysaa xisbiyada kale qaranka ee dalkeenu leeyahay ucdiyo iyo wadani labadaba madaxda xisbiyada qaranka wasiirka hawlaha guud suldaanka guud ee beelaha bariga Burco Sultaan Cabdullaahi Sultaan Cali oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa kamid ah hadaladoodii qodobada dhamaantood oo wada qaadanayaan oo beesha ixtiraamaya laakiin qodobka taageerada kulmiye dood baan ka qabaa waxaan leeyahay ka abiil baan ka qaadanaya halka uu Axmed Muumise isku taagay anuu isku taagay kelmad kale ka oranaya laba jir hal naas ka u diiday afartaba uu ku diiday gudoomiyaha xisbiga saaxiibka nahay muuminna waxaan leenahay qoladani guurguurka ama yar aqoonina laakiin wuxuu ka dhax baarbaadha ufuuda faraha badan ee ka kala timid ilaa balle haleelo iyo tuula habreed gowlaale aad iyo aad baan u hambalyeynaa waxaan aad iyo aad ka mahadnaqayaa si gaar ah taageerada mugale ee xisbiga kulmiye loo boojiyay xukuumadana waa idinka mahadnaqaynaa waxaan shirka u sheegayaa in golihii wakiilada ee Soomaaliland saaka codeeyay 69 baa taageeray mashruucii dekada berbera waanu ku hambalyeynaa golaha wakiilada iyo shirgudoonkooda waxa kamid ah qodobada inay ahayd beeshu beelihii buddiga u ahaa xisbiga kulmiye maray caawan xisbiyada kale ay u caawanin beeshu may caawanin anigu odaga reerkiisii baan ahay ragga Hargeysa ka soo kacay iyo ragga berbera ka soo kacay iyo boorame ragga ka soo kacay mahad aan la gaari karayn baanu idin naqaynaa shirkan loogu magac daray guuliye gobonimo ahaana mid si weyn loo soo agaasimay ayaa waxa ka hadlay marti iyo mas'uuliyiin kala duwan oo ka kala yimid gobolada dalka